go'aan-isutaaga iyo aqoonsi-doonka Somalilan ayaa taagan muddo ku dhow 30 sano waxaana dhanka kale dowladda Soomaaliya wali ay wada dadaalo lagu mideynayo Soomaaliya iyo Somalilan. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowr jeer wada hadallo ugu baaqday maamulka Somalilan si loo mideeyo Soomaaliya meeshana looga saaro tabashada Somalilan. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa ka dhawaajiyay in dadka ku nool Somalilan iyo madaxdoodaba aysan ka mideysnayn aragtida kala tegidda Soomaaliya iyo Somalilan. waxa uu xusay ra'iisul wasaare ku-xigeenku in dunidu ay aqoonsan tahay hal dal oo Soomaaliya waxaana intaas raaciyay in dadka reer Somalilan ay ku safraan baasaboorka Soomaaliya waxbarashada dibaddana ku aadaan saxiixa iyo shahaadada wasaaradda waxbarashada Soomaaliya. Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya iyo maamulka Somalilan inay ka dhabeeyaan wada hadallada labada dhinac ee lagu xalinayo khilaafka taagan si meesha looga saaro go'aan-isutaaga Somalilan. anigu waxaan ka soo jeedaa Hargeysa ku dhashay, Hargeysa ku koray, Hargeysa wax ku bartay. Aragtida midnimada iyo kala taga waa fikir dadka Somaliland ka soo jeeda ay ku kala duwan yihiin. Laakiin fikirkaasi oo 30 sanadood ugu dambeeyayba ku dhawaad ilaa 19 laga bilaabo aragti dadna qabaan dadka qaarkiina ay qabaan haddii si aad yeeli weydo maxaa si kala oo ayuu abwaankii lahaa u waacayna maxaa lagu dayi karaa oo kale war 30 sanadood miyaan meeshu u taagnaanayna waa maran madoon dunidu hal dal bay aqoonsan tahay halka dal oo baasaboorkiisa aynu ku safarno oo shahaadooyinkiisa tasdiiqintooda aynu ku soconno oo haday tahay waxbarasho dibadeed takaliya lagu tagi karaa ay ka tahay marka in dalkii waa la wada yahay hadii la wada jirayna lagu wada jiro sifo sharci iyo dastuuri ku dhisan oo la wada hadlo qofka aragtida qabaana uu ogolaado qofka aragtida ka soo horjeeda qaba ee ka duwan in uu dood furo oo xiwaar furo oo yiraahdo walaalayaalow hadduu taagan yahay tani in dhiqi mayso kumana sii socon karno 30 sanaan marayna maxaa xal ah haddaad adigu qabto maya waa kala tegaynaa walaalkaana qabo maya waa wada jiraynaa waa in la furo xiwaar iyo dood si maxaa lagu sii wada jiraya waa inaynaan abuurin falos hob ama rajo ama aynaan dadka yool iyo tilmaan u bixinin ceel guntiisa aanu sayax ka muuqanin sidee baa lagu gaari karaa oo biyo looga soo saari karaa taa ay ku iman kartaa in biyo laga soo saarana waxa weeye kaliya in wada hadal dhab la wada galo la dardargeliyo wada hadaladii u dhaxeeyay dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland. dowladda Soomaaliya iyo maamulka Somaliland ayaa dhowr jeer hore u yeeshay wada hadallo lagu xalinayo muranka ka dhaxeeya labada dhinac balse kulamadaas ayaa noqday kuwo fashilmay oo aysan waxba ka soo bixin.